waataa ciyaartii u dhaceysay Deelaale iyo sidoo kale Evergreen way soo idlaatay waxayna ku hashiyeen barbaro gool iyo gool ah Evergreen ayaa gool ku hormartay hase yeeshee waa laga barbareeyay markaan gool kulaadii ay markaan tuuro doonaan maadaama hal koox kaliya looga baahan yahay inay iska xaadirayso fiinaalaha tartanka iskuulada ee degmada Balcad 2023 2024 kaas oo iska xaadirisay Caliyaale shalay maanta sawaan arki doonaa kooxdii u tagi doonta Caliyaale waa kan markaan lambarka 14aad ee Deelaale asiga ayaa markaan tuurayo waaw si qurux badan ayuu qiijiyay jaa qurux badan ayuu ka dhigay goolayaa waxaad moodaa kaliya inuu taala iska dhex taagan goolka waaw lambarka 47aad ee Evergreen ayaa markaan u taagan asiga ayaa tuurayo waana kubadoodii ugu horeysay hadii Deelaale lambarka 14aad uu qiijiyay waan arki doonaa lambarka 47aad ee Evergreen hadii uu qiijin doono waaw uu khasaariyay si kastoo uu taataagsaday waxaad moodaa kubadaas inay wax badan ay ka qaldoomeen hawada ayayna ka martay lambarka 6aad ee Deelaale waana kubadoodii labaad ahna kabtanka Deelaale asiga ayaa markaan kubadani tuuri doono marka 6aad markaan asiga ayaa u taagan kabtanka Deelaale caalami maya si qurux badan ayuu u tuuray jaa qurux badan ayuu dhigay inkastoo goolaayo uu habeesan waayay haddana waxaad moodaa kubadaas inay birta ay ka hilisay waaw lambarka 26aad ee Evergreen ayaa tuuraya kubadoodii labaad Evergreen kubadoodii labaad ay tuuranayaan Deelaale laba kubad ay tuurteen mid kamida birta ay isaga dhufteen birta ayaa ka hilisay hadii uu calafka ka hilinayo waa sida tan lambarka 26aad ee Evergreen ayaa markaan u taagan asiga ayaa markaan tuurayo waa si kubadoodii labaad waaw goolaadso Evergreen way qiijiyeen mid kamida hawada ay marsiyeen mid kamidana way qiijiyeen wiilasheeku waa gar isku siman waan arki doonaa lambarka 9aad ee Deelaale markaan asiga ayaa taagan markaan asiga ayaa tuurayo waana ciyaariyaankii goolkii ay ku soo baxeen Deelaale u dhaliyay sideedamaadka tartankan waana ciyaariyaan runtii xirfadiisa aad u sareyso markii loo eego gool kulaadyada inta ugu badneed uu soo qiijiyay maanta uu qiijiyay goolaadso Deelaale way ka faa'iideysteen lambarka 9aad uu ka faa'iideystay kubad cajiib ah uu ka dhaliyay taasoo ka dhigan in laba kamida saddexdii ay tuurteen Deelaale gool ay u sarifeen hal kamida laga qabtay aan arki doonaa ciyaaryahankan hadii uu qiiji doono iyo hadii laga qaban doono way markaan Evergreen lambarka 24aad سيف عالمي واو هرايان كوغو شيغاي غولايان waxaad moodaa kulankii horena wuxuu badbaadiyay kubada cajiiba kulankana wuxuu sameeynaya seef gareen cajiiba walisaya wasala kala bixi doona maadaama labada team kaliya looga baahan yahay iskuul inuu iska xaadiriyo kama dambeeysa tartanka iskuulada ee degmada Balcad lambarka 13aad ee Deelaale ayaa markaan u taagan waana kubadoodii afraad waan arki doonaa halka uu taagnaa ayuu ka dhaliyay inkastoo kubadaasi khatar gashay inkastoo uu kubadaasi qaban karay inkastoo uu kubadaasi mid ku aadan goolaayo hadan goolaayo uu habeesan waayay qaban waayay way dhalatay waayay markaan lambarka 20aad Ismaan ayaa markaan tuuray Ismaan sheekadu way isbedeshay hool waxay noqotay Sarjin ayaa loo diray Evergreen laba kubadood ayaa laga qabtay واو اسمان وخيجي سي قروح بدن اي وخيجي سي دغن اي وخيجي افر كبدوت اي تورتين ايفغرين لبا وا لاغا قبتay labana way xaqiijiyeen kubadoodii shanaad Deelaale ay tuuran doonaan hadii laga qabto taas waxay ka dhigan tahay wili inay rajo u furan tahay Evergreen
haddii tan laga qabto lambarka 22aad ee Delaale taas waxay ka dhigan tahay wili inay sheeko u furan tahay Evergreen haddii uu ciyaaryahankan dhaliyo sheeko waa gabagabo Evergreen talo nasiibka ma caawin doona ma soo laaban doonaan Evergreen mise waa lagu shubi doonaa wow Delaale final finito ciyaartii way soo ilaatay Evergreen ayaana sidaas loogu guuleystay Delaale ayaana u soo baxday kama dambaysta tartanka iskuulada ee degmada Balcad 2023 anigu waa Jelaani Cali Muxuu Kamaara kaamirada quruxda badan waxaa noo duubay saaxiibkay Jaan Gabaanaga oo idin leh Sports Marle